بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ميلد جوجتان بإله سبحانه وتعالى دكوان ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن الله وفي انت باهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiinteena allah u naxariisto, annagana allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. Qodobka koowaad, madaxweynihii hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo dalka kusoo wajahan iyo arrimaha waxa khuseeya kelmad baa ka oran doonaa. Abiy Ahmed iyo Ethiopia oo xargaha goosatay iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee ay ku sugan tahay Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya waxa kaga aadanna kelmad baan ka oranayaa. madaxweynihii hore Soomaaliya sidaad la socotaan waa dhaweyd waxay isaga iyo madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ku heshiiyeen oo isla qaateen inay dhexdhexaadiyaan dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaheeda Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamul goboleedka Puntland madaxweynaheeda Siciid Cabdullaahi Deni. Arrintaas waxaan idiin sheegay hadda ka hor inay fashilantay. Fashilkana uu ka yimi dhanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ballantii iyo shirkii labadaba ka baxay. Kadibna madaxweynihii hore Farmaajo iyo labadii madaxweyne waxa ay go'aansadeen in ay dadaalkii sii wadaan si marka ay arrintu culays u yeelato. waxaa madaxweynihii hore uu go'aansaday commitmentigii uu galay dhexdhexaadinta ahaa inay daruuri u tahay ama uu u baahan yahay inuu iyada darteed magaalada Muqdisho u tago, halkaasoo uu kula kulmi doono madax iyo magaranaysaa siyaasiyiin kala duwan si arrintaas ay wadaan ay uga miro dhaliyaan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay ku guulaystaan oo ay heshiis iyo wadajir ay halkaa ka soo dhaliyaan. berigii hore waad xasuusataan bannaankaa laysu taagnaa, dagaal baa lagu jiray, dowladdu aan sanad jirin baa mucaaradku suma wallaahi lahaayeen. laakiin waa ka duwan yahay mucaaradka hadda jira kii hore. dowladduna aad bay u tabardaran tahay, dhibaatooyin badanna way wajahaysaa. waxay wajahaysaa dhulkii Soomaaliya oo duulaan lagu yahay. therefore uma baahna sidaa awgeed uma baahna dowladda Soomaaliyeed in mucaarad toos ah iyo buuq iyo qaylo lagu kiciyo. uma baahna. waxay u baahan tahay in geesaha lagala istaago, madaxweynaha waqti la siiyo, la garab istaago, talooyin la siiyo, lala hadlo, wixii ka khaldan laga saxo, wixii magaranaysaa u saxan lagu taageero, la garab istaago. madaxweynihii hore Farmaajo ma aha umana muuqdo nin argoosi siyaasadeed iyo qaabkii isaga loola dhaqmaya. waana ku ammaanan yahay, waana runtii tala fiican oo la rabo dadka mucaaradku inay ka bartaan. markii aad wax mucaaradaysid dowladdu marka aysan mucaarad u baahnayn iyo markay mucaarad u baahan tahay waa inaad kala taqaan. dowladda arrimaheedu markay domestic yihiin oo local yihiin oo gudaheenna ay tahay arrimaha gudaha waa la mucaaradi karaa, qof walbana xaq buu leeyahay mucaarado. laakiin markay timaado arrimaha dibadda iyo dalka iyo dalal kale oo ishaya, ajandahaas madaxweynaha iskale, isagaa ka mas-uula, isagaa dejiya, waa in lagu taageeraa. waa inaan dalal kale looga helin. hadday isqabtaan cid kale, isagaa ajandaha iskale, sida loo difaacayo dalka isagaa laga rabaa, maadaama ay isaga portfoliyadiisii tahay oo berri isaga la weydiinayo wixii xumaada, wixii hagaagana uu isagu creditkeeda yeelanayo in la garab istaagay rabtaa. marka arrintaas mucaaradku maanta waa ku ammaanan yihiin. labadii madaxweyne horena waxaan leeyahay runtii qaabkaana hadda wax u wadaan. waxaan u malaynayaa inay ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidaysan doonto haddii aad ku guulaysataan heshiisiinta labadaas hogaamiye. aad ku guulaysataan waxaad noqon doontaan garaha waaweyn iyo arrimaha murugsan ee dalka Soomaaliya dhex yaalla in magaranaysaa laydinka dambeeyo oo laydin diro. marka allah idin garab galo. arrintaas marka koowaad madaxweynuhu imaanayaa, marka labaadna qadiyaddu u socdo
ودحدحادinta labadaas madaxweyne oo isku haya maamulka dalka Soomaaliya iyo meeshii lagu wajihi lahaa arrimaha gudaha isku haya ayaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay ku guuleystaan baan u rajaynaynaa qodobka labaad Abiy Ahmed marka koowaad gudaha wadanka Soomaaliya wuxuu ka wadaa qalalaasi dadkan la laynayo ee u shaqeeya civil aviation ka Soomaaliya ama ma garanaysaa laanta hawada u shaqeeya waxa ka dambeeya oo soo abaabulaya oo dacminaya waliba dad gaar ah la beegsanayo dadka ka soo jeeda waqooyiga la beegsanayo si musabiixi iyo koox yar oo mashruuca gooni goosadka ku lacag qaadata dhaqaale ku samaysa ilaa xad maraysa waali dadka beentii ay u sheegayeen ay soo afjarantay shacabkii ay kaceen oo wax garteen reer Somaliland boqolkiiba 90 iyo ka badanba inaanay u bislayn rabina una bukin una hanqaltaagayn beentii lagu akhriyi jiray inay ku sii socoto oo ay diyaar u yihiin rabaana jecel yihiin Soomaalinimada iyo midnimada arintaas oo aad ugu foorarta ayaa waxa la isku dayayaa iyaga iyo reer Muqdisho in colaad laga dhex abuuro dad baa marka Muqdisho lagu laynayaa markaas Muuse inta soo istaago wuxuu leeyahay idinka ka dambeeyay waa la beegsaday waan fahmayaan dadku intooda badan isku dirkaas Ethiopia ka dambaysa Abiy Ahmed waa madax dhul la dhac waxaan arkay oo kale Abiy Ahmed oo isku dayay cid kasta oo heshiis la gali karo inuu heshiis la galo waxaan arkay safiirkooda soo qoray safiirkooda Pakistan oo soo qoray waxaan la kulmay taliyaha ciidamada waxaanu ka wada hadalnay arrimaha difaaca iyo badaha maritime ma garanaysaa security waxaan la yaabay maritime ka aad Pakistan kala hadlaysaan madamkii waagi dhaweed biyo xireenka qodeen miyaha ilaa bad ma lihidine laan loo kidbaatihin not 1 inch more not 1 inch intaad haysataan oo Soomaali galbeed ah baanu hadda ku taamaynaa qorshaha iyaguna yahay inaan ka soo ceshano marka dhul Soomaaliyeed kulli qaadan maysaane badda aad dadka geyn doontaan oo aad isla difaaci doontaan oo aad ka wada shaqayn doontaan idinkii Pakistan waa badee riyada beenta ahi way soo afjarantay maanta magaalo waxay qabsadeen 110 kilomitir u jirta Addis Ababa ayaa waxa qabsatay Faano waxa la sheegayaa meelaha qaar kood inay 80 kilomitir u jiraan iyo wax yar 82 kilomitir inay u jiraan Addis Ababa oo Addis Ababa ay la kulmayso cadaadiskii ugu badnaa iyo bandow inay la kulmayso waxaan loo sheegay loo xaqiijiyay aadna ku aragteen bartooda rasmiga ah UN-ta dadkii ka joogay staafkii ka joogay in badan oo kamid inay ka baxayaan safaaradihii in badan oo kamid waxay u sheegeen sida Mareykanka inaysan Addis nabad ahayn dadkii ka shaqeynaya diblomaasiyiinta ahana iyo dadkii dalxiiska u tagayay intaba laga waaninayo lees kaga carara Ethiopia way kala dhaqaaqaysaa waxay u kala dhaqaaqaysaa qowmiyadihii ay u samaysnayd oo la isku khasbayay baa waxay kala noqon doonaan dawlado kala meel ah Soomaali galbeed waxay noqon doontaa way ka madax banaanan doontaa sida ugu dhaqsaha badan biidin Ilaahi taala waxayna soo gali doontaa dalkoodii iyo dadkoodii walaalahood Soomaaliyeed ay ka xirnaayeen ayay soo gali doonaan oo ku soo biiri doonaan insha Allah taala marka Abiy Ahmed madax dhul la dhiciisa waxa kamid ah marka uu safiirkaas ilaa Pakistan baan kala sheekaystay arrimaha maritime-ka waxaanu kaloo ka wada hadalnay MOU-gi la saxiixay therefore mar haddii MOU la saxiixay bad baanu leenahay badaanu ka wada sheekaysanay waxaan arkayaa oo kale inay maanta hadda wada joogaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed inay wada joogaan Nairobi magaaladan inay ila wada joogaan aad uu raajicinayo in badanna ka bariyay ninka la yiraahdo Ruto inuu ka shaqeeyo qalqaaliyo Xasan Sheekh Maxamuud inuu la kulmo madaxweynaha marka waa uga digaynaa arinta ku khaldamin ninkii aad sabab kugu bahdelay dhibaatada ogeyd kugu sameeyay hadalkaagii hore oo mowqifka xamiidka ah sharafta badan ahaa oo ahaa jeer uu ka noqdo MOU-gi uu saxiixay ma aqbalayo inaan arko oo la fariisto hadalkaas iyo mowqifkaas iyo taageerada aad ka haysatay shacabka Soomaaliyeed oo dhamaantood kugu garab taagan difaaca dalka
haddii uu ku celceliyey arrintaa tallaabada uu qaaday shalay oo ah inuu saraakiil u diray lughaya oo ay tageen saraakiil ethoobiyaana oo la socda muuse kooxdiisii askartiisii qaybo ka mida la socda haddii uu saa yeelay madaxweyne wax aanu aad u raagsanay baa jira oo ah xiriirka etoobiya in la jaro weliba khaasatan hawada in laga jaro salkaa dhulka ugu dhufanaysa diyaaraddaas iyo dhaamka korontada ayuu dhaqaalaha ugu badan dalka uu hadda hayo oo soo gala uu yahay waana dal aad iyo aad tacbaan oo xagga dhaqaalaha dayman aad u badanna lagu leeyahay nimankaas si aad salka dhulka ugu dhufato hawadeenna ka mamnuuc xiriirkana jar sal muggiisay u fadhiisanayaan ninkan waalana ordaya wuxuu rabaa dhibaato ka jirta iyo madax xanuun ka haya gudaha inuu soo xawilo oo meel kale u xawilo marka ha u fududayn ha la fadhiisan ha arkin ha salaamin waxna ha ku darsan sawir yaan lagaaga qaadin adoo isaga la taagan haba yaraatee wax wada hadalaya idin dhex marin ilaa go-aankaa gaartay oo ahaa inuu ka baxo heshiiskii MOU-ga oo uu kansalo caddeeyana si babliga inuu ka baxay inta ka horraysa ha la kulmin hays arkina insha allahu tacala waxaan ku rajaynaynaa guul annagoo dhan baa ku garab taagan geesahaanu kaala taagannahay hana niyad jabin madaxweyne intaasaan odhanayaa hada wabillahi tawfiiq